sheekada afaraad axdigii ilaahay la galay nebi ibraahim. sannado badan kadib markii roobkii baabi'iyey qoomkii nebi nuux, dad badan ayaa dhashay oo yimid dunida dusheeda oo dhammaan hal luuqad ku wada hadlo. laakiin nasiib xumo, sidoo kale dadkan waxay ku noolaayeen dembi oo waxay samayn jireen dunuub aad u badan. dadku aad ayay iskula khab weynaayeen oo kibir ayaa ku jiray, mana aysan adeeci jirin ilaahay. xitaa kibir dartiis ayay waxay dhiseen meel aad u dheer si ay jannada u gaaraan. ilaah wuxuu arkay in haddii dadkani ay sii wada shaqeeyaan inay dembi fara badan sii wadi doonaan. ilaah wuxuu beddelay luuqadoodii oo wuxuu ka kala dhigay luuqado fara badan, wuxuuna ku kala qaybiyey adduunka oo dhan. magaaladii ay ka dhiseen meesha aadka u dheer waxaa la odhan jiray baabeel, oo micnaheedu ahaa dawakh ama wareer. 100 sano kadib, ilaah wuxuu la hadlay nin lagu magacaabi jiray abram. ilaah wuxuu ku yidhi, ka tag waddankaaga iyo reerkiinna oo tag dhulka aan ku tusi doono. waan ku barakayn doonaa oo waan badin doonaa faracaaga, magacaagana sare ayaan u qaadi doonaa. waan barakayn doonaa kuwa ku barakeeya, waana habaari doonaa kuwa ku habaara. dadka dunida oo dhan waan barakayn doonaa adiga daraadda. kadib abram wuu adeecay hadalkii ilaahay, wuxuu kaxaystay xaaskiisii saara, shaqaalihiisii iyo wixii uu lahaa oo dhan, wuxuuna tegey dhulkii kanaan ee ilaah uu tusay isaga. markii abram uu dhulkii kanaan yimid, ayaa ilaah ku yidhi, fiiri hareerahaaga oo dhan, waxaan ku sii doonaa dhulkan aad aragto oo dhan, adiga iyo faracaagaba way dhaxli doonaan. kadib abram wuu degay dhulkii ilaah u ballanqaaday. maalin ayaa abram la kulmay melekisiida oo ahaa wadaad aad u sarreeya. melekisiida ayaa u duceeyey abram kuna yidhi, ilaah oo ah kan aadka u sarreeya ee leh cirka iyo dhulka ha ku barakeeyo. kadib abram wuxuu siiyey wadaadkii 10% wixii uu haystay oo sadaqa ahaan ah. markay sannado badan ka soo wareegatay, weli abram iyo xaaskiisa saara wiil iskumay dhalin. ilaah ayaa la hadlay abram oo u ballanqaaday inuu sii doono wiil iyo farac oo sida xidigaha cirka oo kale u badan. abram wuu rumaystay ballanqaadkii ilaah. ilaahna wuxuu ogaaday inuu abram yahay nin xaq ah oo rumaystay ballanqaadkii ilaah u ballanqaaday. kadib ilaah wuxuu axdi la galay abram. caadiyan axdigu waa heshiis ka dhaxeeya laba dhinac oo midba midka kale wax u sameynayo, laakiin tanu waxay ahayd ballanqaad uu ilaah la galay abram. ilaah wuxuu ku yidhi, waxaan ku sii doonaa wiil ka soo go'a jirkaaga, waxaana sii doonaa dhulka kanaan dadka faracaaga. laakiin weli abram ma uusan haysan wiil.